اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دور يا شيخ قيماله سومالي سات تي في. السلام عليكم ورحمة الله. ميل كastoo aad naga daawanaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan xaflad loo sameeyey musharax u taagan tartanka doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo lagu qabtay hotel Asar. waan soo dhaweynaa kulligiin waxaan idinka mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah. waxa weeyaan waa fursad qiimo leh inaynu xilligan oo kale isugu nimaadno meeshan innaga oo kulligeen is agshinay laakiin inaynu mar keliya iska helo meel sidan oo kale ah iyana waa munaasabad qaali ah. laakiin waxaynu ku bilaabaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah oo inoo akriyo sheekh maxamuud maxamed oo inoo akriya aayaad min adikri xakiim. kusoo dhawow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. طيب وما سيح الشيخ إلى هذا الأبواب فهو إلى القرآن الكريم شيخ محمود محمد إذن كان وحان دوريا إلى فرصة السيو قدوميها قدية طبعا قاضاء حفلة سلما كان أحفايرك نغنغاء الصومالي كو أحمد عبد علي وحان دوريا إنه لبكر بدود إيرانو ما تنسي aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad uga soo qayb gasheen xafladdan aan idinku casuulnay. waa arrin lagu farxa marka mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaadba waa idin mahad celinaynaa. uma imaan halkaan inaan hadal badan ka iraahdo laakiin waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo xafladdan oo sababta aan ugu qabanna ay tahay iyada oo xisbiga ama ururka Soomaali Kow uu musharax ku yahay mudane Xuseen Khaliif Xaaji Jaamac وكسر صوماليا. صوماليا وحي مريسا حلي كان يقول هو لقلي دورة شوك وضركونا لباتوي بدل وصومري مركا استقاش لكلمة انه لبكي اما وحي امد كارك سيدا اوجين وحي اباهنتها امد الا سمتبحيو وصحلوه قفتو ujeedada ururka ama xisbigeena maaha xukun doon maaha dhaqaal doon. waxaan rabnaa ummadda in aan ka saarno dhibka muddada 12 sano ku habsaday. marka uu yimaado qof wax garanaya ama soo shaqeeyay oo way arag ah hoggaan fiican helo ayaa wax laga bixi karaa. idinma oranayo wax kasta malab iyo dahab ka dhigaynaa laakiin dadaal ayaan garanaysaa aan muujin doona haddii ilaahay yiraahdo. marka hadal badan inay aado ma doonayo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa jaaliyadda jidda sida qiimaha leh ee aad uga soo qayb gasheen waana mahadsantihiin. inkana maxamed maxamuud xay xildhibaankeena waan doonayay inuu isna laba kalmadood oo munaasabadan khusaysa u yidhaahdo. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شرف وين بين نوتهي بيننا جاري هذا جدا إنه هل كان سوني مع معاوة إنه تغيرنا صاحب كان حسين خليف و دمع كجري بربعة دلك المواء بربري دوري الله تنسنا كهر بربرين شوى واحد سهلا وبعدين دمعنا نقول منه بريدين وقع ونسا لكن بيقولوا سدوا آد يقول بلدتهي حتى شيء والضمن يشوفوا في ليلة فهذه ساعة وقت غابنيسا دعائي taageero inaynu ugu darno marka qofkii aynu isleenahay uu ka bixi karayaa hawshaas ee u soo istaaga waxa weeye lagama maarmaan maadaama dadku tiro badan yahay waqtiguna cariir yahay tafaasiil badan ma gelayo xuseenna waxaan u malaynayaa intaynan halka joogtay iyo intii kale taqaanba nin tilmaan ka kaaftoomo oo in la kabo oo la faaniyo u baahan ma ah qof ahaanna waa nin ilaah baa kamaalka iskale alkamaal lilah dhammaystirnaan ilaahay baa leh laakiin qof bani aadana intii uu sifaad dhammaystira yeelan karo hadday tahay akhlaaq wanaag hadday tahay aqoon cilmiyeed hadday tahay mid ciidan hadday tahay mid waaye aragnimo intaasba mid nin wadaleh weeye weliba waxyaalaha ay Soomaaliya hadda aad ugu baahan tahay ay ka mid yihiin takhasuskiisa sida amniga oo kale sida dhaqaalaha oo kale siyaasaduna labada ugu waaweyn ay ku tahay markaska saxiifka mool ugu weyn aan sharaxaadda Xuseen ka qayb galo anoo ayaga wakiilka afayeenna ka ayidno hiliyo ana wixii ummadda Soomaaliyeed ay dinka hogaankiisa ay ku beerayso nala garab istaago taasana sababo inta wujuuda isu timaado doolka rabana ka yimaado taas shaqo ku jirta soo gudii marka intii marka intana u dul qaatay oo mujtamac suuban joo dul qaato wajh walba leh Soomaaliya arinteedana hada diyaar u ah asaga ba dhibaato doonta gacana lagu siiyay ninka odaga anigu sidaas aan qabaa Soomaaliyana xiseen hadii gacan la siiyo maxaa hadiya ka liidamay maxaa diyaar u ogtiin dalka Malaysia la wadan sano ka hor waxba ma ahayn sarkaal sare oo ka tirsan bangiga horumarinta islaamka IDB bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh وأديات بدومة تنتهي سوقف كالكعبة سوقف كشين حفلة لوجو وقلاليو سوماليا كو وأن رجيني إن السيد المقعب وتلماميو إن أي سوماليا كهول مريسو مصلحات كسر وشخصية لكن معناها ورت مقعي إن حوار الغير هذا وكل هذا سوماليا كو معناه وحويان كو لقوة إن مصلحات سوماليا أي كهول ريسو مصلحات كسر شخصية marka waa xisbi ka duulayo principalka asaaskaas ka duulaya oo raba in macnaha sidoo walaalkeen yiriba codka ay ku dhacday wadaanta ka soo saaray Xuseen waa nin saaxiibkeeya aan wada shaqeynay dadkan waxa la yiraahdaa Soomaalidu ay ku mahmahdaan qofka haduu yiraahdo habeen aniga waa aqaana ma waa garanaya jid ma wada marteen جدين ما وضع قبسته مركو حلقة يا بطل بدنا ماشي فريق إن جدين أقولين جدين ووحدة معناه حوار من الأحمرين لبدا إن أنا حسين وأنا ولد أحمرين مقالنا ولد الجنين مدة إن كبدا تتوسنا إن حال كان نو حمل الجنين مدة كبدا أيضنا لا تتوسنا كره كهر نو حوي وسنقاني وحكبدا لبعض سنة أيام حسين سنقاني حسين خليفة جامع أقولتها كان سلنا هي جارهانته ما حدي عن لابد أدرك بقى وده كيف سنة جدنا عن وده مرنا وده سفرناي وعن دب وده مرناي إسلام كافنا عن حوله أي نتحملين إلى هذا عن ولك عمها إسحايسن وحنا مالنا إنه تاسف تجد بلاستها وعن كورنا مكرو حسين سيد رجع له رأي شيء وان كنت تخصصي حاجة تقالها يو
daraasaadka dalalka dhaqaalahooda iyo hataa macnaha sida markii la maalgelinayo wadanka in loo baahan yahay wadankaas khataraha ka jira in la ogaado. iminkana waxaan doonayaa inaan fursadda siiyo cali ismaaciil buraase. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u kacay raggii ugu horreeyey baa hadalkii dhameeyey. anigu nin aan shaqayn baan ahay oo tv-gaan aada u daawadaa. tv-ga waxaan ka daawaday rag badan oo ama iska sharaxay england ama iska sharaxay nairobi ama sweden iska sharaxay ama waddanka gudihiisa iska sharaxay. waxaanan horay u maqal nin sacuudi arabiya oo araadil muqadisa ah iska sharaxoo yidhahda soomaali waan hogaaminaya. sidaasu waxay iila muuqatay in uu meel munaasiba ka sheegay inuu sharaxo, waayo arligii dunida ugu khayr badnaa baynu joognaa. marka waxaynu ku kaalmaynaynaa iyadoo aan filayo inuu u qalmo ma garanaysaa hawshaas uu maanta dalbaday aan ducada ku kaalmayno. taasina waxay ina tusaysaa in haddii uu mansabka ka way qabtana sidaas lamida uu noqon doono nin Soomaali oo dhan u dhex tahay oo aan ku shaqayn reer ku shaqeeya Soomaalinimo iyo wadaniyad iyo inuu wadanka ku qabto. taa waxaa ka garanaysaa magaca Soomaaliya kow ee dhaqdhaqaaqan Xuseen iyo ragga wadadkii ay asaaseen kaasoo ay ku jiraan Soomaali oo dhan. iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa musharaxa madaxweynaha Xuseen Khaliif Xaaji Jaamac. bismillahi raxmaan raxiim. mudanayaasha ka soo qaybgalay shirkan madashan qiimada iyo qaayaha leh waxaan idinka mahadnaqayaa kasoo qaybgalkan kasoo qaybgasheen madashan muhiimka aan isugu nimid caawa, taas oo ah mid aniga ugub ii ah oo ahayd markii ugu horreysay ee aan Soomaali soo hor istaago oo aan u soo jeedso baaq aniga khuseeya oo axad weyn anigoo ka faaidaysanaya kulankan qiimaha iyo qaayaha leh oo aan caawa isugu nimid. waxaan Soomaaliya waxa weeye wacyi wada adag bay ku jirtaa. waxaa loo baahan yahay hogaamin adag oo qaran. anigu siyaabo badan baa loo fasiray dhibaatada Soomaaliya waxa looga bixi waayey. waxaan aaminsanahay inay tahay hogaamin xumo. balama fara badan baa dadka siyaasadda gala oo ka hadla qaada. nin baa ku oranaya dhulkan dhan baa waxa ka dhigaya cagaar badan jeexaya, nin baa ku oranaya weriyo balamo badan baa lalaada. laakiin aniga ma qabo Soomaaliya inay balamo badan u baahan tahay. waxay u baahan tahay qof abbaara dhowr arrimood oo sababta bixinta dalka muhiim u ah oo ama kaabayaal cad ay Soomaaliya u baahan tahay. qodobka ugu horeeya anigu aan qabaa inay Soomaaliya ay u baahan tahay 5 qodob baan kusoo koobaya hadalkayga. waan isleeyahay campaignkaaga waxay u yihiin calaamadaha ama qodobada ugu muhiimsan. qodobka waxay hogaamin baan sheegay inaan ku celiyo mar walba hogaaminaanta dalka jirta kan la helo dalka hogaamiya oo ku hogaamiya tayo iyo aqoon iyo maxaa la yidhahdaa waxtarnimo. qodobka aniga hogaaminta haddaan ka baxo waxaan rabaa nabadgelyo la-aan inay dalka ku baahday. problemka koowaad waxaan booran lahaa waa nabadgelyo la-aan, laakiin nabadgelyo la-aan ma qabo in la keeni karo haddaan hogaan jirin. waa in hogaan la helaa si nabadgelyo la helo. anoo qabalaa number 1 qodobka in xisab problemkiisa ugu horeeyaaba waa security ama nabadgelyo la-aan. bini aadamka duusan nabadgelyo haysan meel lama gaarayo, iska daba kalaabanaya, islaynaya, guri baa la dhisaya, waa la diminaya, horumar iyo waxaasaa laga hadlaya adduunka maanta. laakiin horumar haddii aan nabad ay jirin horumar lagama hadli karo. mashaakilka saddexaad waa musuqmaasuq. qadiyadda Soomaaliya ugu daran oo wax ka dhaqaaqay yihiin waa musuqmaasuq baahay oo ku baahay meel kasta, meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa. lagu xamanayo ognahay inagu siyeeli mayno waynu ognahay xanta Soomaalida ma qarsoona in hantida dawladda soo gashaa inaan lahayn xisaab iska dareer suuqa iska marto aad looga deeranayo. qodobka afraad waa sarreynta sharciga iyo ilaalinta doorka hay'adaha dawliga ah. qaanuunka guud ahaan barnaamijkeena haysa waxa weeye waxbaan qoranaa wixiina iskuma raacno ama lama tixgeliyo ama lama ixtiraamo. qodobka shanaad oo ugu dambeeya
maaha inuu ugu yaryahay ilaa ugu muhiimsan yahay ugu dambaysiiyey uma yara waa qodobka ugu muhiimsan waxa weeye qabyaalad haddaan Soomaali nahay kansar baan qasan qabyaalad mana qarano waan ku awoodnaa laakiin dib inuu yahay waa sheegnaa laakiin riyadii anigu shakhsiyan waxaan qabaa qabyaaladu waa kansar ama jirro culus haddaad jirro culus qarsatid inaad dawadeeda digid ka wareegtid oo dhimataa dawadeeduna waa inaan qabyaalada la dirno waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga waxyaalaha hore waa nadaalanyaha marinaya waxaasoo dhan soo loo fulinayaa شغل باشا يا رب ولا مشي وبيان يلعنيا بوران جاهيا دهب كيا دم ما كان ما مرة ولا غالب ولا مصري لكن شغل بانك هذا القضية تكون وجبنا عايز سيروا حل كذا جيبيا أنا هو عند الله إن رجال خدي لحلق إرادة الرابطان شعب الصومالي حكسو كذبين يا على كديكي نفبلاريا الصوماليا aan siiyo bal iminkana fursadda fanaanka weyn Mustafa Xaaji Aadan. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Soomaaliya waxa awada cadaatay maanta intaha ay hayaan in qabyaaladda la iska dhaafo ay Soomaali mid tahay sidan oo kale weligeena ma noqon qolo walba way joogtaa maanta madaxweynaha aan jecelnahay oo aan dooranayno hadda in ilaahay soo bixiyana aan ku rajawaynahay ilaahay guusha ha siiyo sow in madaxweyne noo noqdo soo googelin inteeda oo dhan madaxweyne waa kuwa falnay inaad madaxweyne noo noqoto waxaad yeelaysaa waxaan dalbanaynaa ama wax kala ma rabno cadaalad sinaan ayaanu doonaynaa ninkii madaxweyne noo noqday waxaan markaa doonaya hadda inaan fursad siiyo Zakariya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idin sheegaynaa waxaa jira afar xaalood dadku ku dhaafo afartoo waa habeengadan haddaa garanaysaana waa garateen haddii kala wadii sheegay markaana wax ka muuqatay inaan isku weyne anigu waxa weeye madaxnimadu waa habeengadan caaqil jeerban madaxweyne habeen baa maqashaa deeqsinimadu waa habeengadan geesinimadu waa habeengadan cilmigu waa habeengadan أفضل حافظ هذه أفضل حسين يا شيء هذا تعاون صح كلام مرة هذا تعاون فرحة هادئة وين إلى نحاول كذا ولكن حسين علي الحاج كامل waxaan ku aragnaa fadhiga halkaas kay dhici jiray oo kale Soomaali wada dhan aan lahayn qabiil aan lahayn wax Soomaali ku kala duwanaysan jirin taageerada jidda ay si fiican uga soo qayb galeen taageeradaas waxay muujinaysaa isbeddelka Soomaalinimada oo Soomaali maanta ku bislaatay inay diyaar u tahay haldoorkeeda aqoon-yahanadooda in ay soo xushaan ayaan u arkaa شيء مناسب تذكر ليش اسمه صاروا وظافتي عيالي شيء مركا عادية الصوماليين وصلوا dhibaatadii xalaaqiin ugu habsan qof iyo labaatan sanadood haddii aan waxaan aad ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed mushakilka ee goobta soo jeeday ee sida haddaan taa ka sii anigu waxaan ka soo jeedaa gobollada bridge-ka isku xidha ummadda Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed jecel ayaan aad iyo aad uga soo jeedaa saad waxaan
soomaaliyeed ee u soo baxay halka soomaaliya hoggaamiyo waxaan kula dardaarmayaa arrin keliya weeye dardaaranteedu waxa weeye adigaa isunaya dadka soomaaliyeed siday kugu raaci lahaayeen waxa weeye niyad saadiq oo dadka soomaaliyeed aad ula timaad iyo in haddii aad qabatid xilka aad u noqotid dhexa oo dadka soomaaliyeed ilaahayna uu ku arkayaa bani aadamkuna uu ku arkayaan aadna waa ku faraxsanahay halkan soo dalbay خليف رمضان أحرمتيني وقلما فرحتنا الصومالي صوتوا أدفع بحنين إلى هلا تدكي نوعا هذا إذاعة هذا متعلمين هذا منطقة وساعدها سبيل في بعض أدفع بحنين أدفع فرحسنا على دولة نبات كمال جدا عن وقت الحريم الصومالي والمسؤولية شرطي هذا موجود تدكي والرجل مناسبة في وكا إلهي وحكبر إلهي تعالى daawadayaasheena qiimaha leh intaasi waxaa noogu dhamaaday barnaamijkeenii gaarka ahaa inta ka horeysa waa cali kuus iyo bahda Somali Sad Saudi Arabia oo idin leh nabad gelya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala صحبه وسلم الله